السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دو channel كيغا ayaan goob doona marka la isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. Fadlan hadaa igu cusub tahay soo dhawow subscribe iyo saar ka mid noqo asxaabtayda hadaa hore ila joogtana muuqaalkan like iyo saar. waana maadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channel kayga meel walba aad joogtiin. waxaan ilaahay idinkaga rajeynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. asxaabta cusub ee ku soo biirta channel kaygana waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada. channelku waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub iyo qisadii najmo oo noo mareysay qaybteedii labaad. waryaada ammaanta idin canaantee waa aragteen channelka daawashadiisa iyo subscribe-ka uu haystay cirkii dhulka isku jiraan. ma qisooyinka Soomaalida iska daayaayo carabtii kaliya ayaan u guuraa mise channelku idinku socdaaye niman yahow saamax waa ka bedelaysiin. ma ogtahay haddaa muuqaalka 2 qof 3 qof inta hore usii qaadatid aa u sheergaraysid in wax badan ay aniga ii faa'iideynayso. subscribe-ka channelka wuu socdaa sida youtube-ka uu ii sheegayo. dad badanaa nagu soo biiraayo haddana anaa iimaankayga qanjaha joogaa maahane wax noo qalmo iyo wax noo dhow subscribe-kii daawashadu isma laha. ma waxaa rabtiin inaan qisooyinka Soomaalida iska daayo qisooyinka carabta kaliya bas aan aado? bal qaybta commentiga igu soo qora. mise saan waa noo dhaamaysiin oo dee channelka kor waa u qaadaysiin oo idinka ah dadkii dhan ee channelka uu ku socday hore waa u wadaysiin. bal wixii ra'yigiina ah qaybta commentiga igu soo qora. waxaan u maleynaa iimaankayga hadduusan qanjaha buuxin waa horaan dhihi lahaa iga tag 200 kun haystaa 6 kun 5 kun oo daawane. warnaag iga iimaan badan inay jirtaba u maleymaaye waase ku iimaan qabaa falilah alxamdu. waayo mar walba waxaa la fiiriyaa maalmay kuu kacsaneed haay kuu aheed aa kusoo marayso, maalmo ay kaa kala damaysana way kusoo maray. waxaa loo baahan yahay marka dhibka iyo dheeftaba. dhib ma dhihi karna alxamdulilah ilaahay dhib ha naga haayee. markuu haayahan inaa ku qanacsanaatid, markuu dansan yahan inaa ku qanacsanaatid. yaa leebarkii uu markaas maraba inaad tiraahid meeshaad shalay joogtay waa ogtee waxaan ha u bixin. one day channelkayga markay ugu yartaa 17 kun aa daawo jirtay. haddana 7 kun oo ciir ku galaa. warsaan ii dhaama haddii kale qiso Soomaali dhan nimanyaho waa iska dhaafaa. qisooyinka carabta ee midba midda kale ay ka daran tahay oo channelkayga markii hore uu ku socday aan iska soo cishanaa. labadayda channelba qiso carabaan ku wadaa. haddii kale bal aragtidiina aan arkay qaybta commentiga idinku igu soo qora. muuqaaladana like-ta saara oo soo share gareeya. dad badana wallahi waxay ii soo qoraan ayaanay muuqaaladaada ima soo gaaraan. waayo channelka inuu faafo hadda koor waxbaa ku yimid cilad. channelka inuu faafo oo dadka uu muuqaaladii tuso ma sameynaayo. haddii laakiin muuqaalada aa share garaysiin oo like ii saartiin xaqiiqo waxaa ah channelka dib uu noogu soo noqonaa. aadaan u mahadsantihiin. intaan aan joogaba abaaldhacu ma fiicno idinkaa isoo gaarsiiyey. shalana waxa waaye intii aan haystay la-aantiin ma aanan heleen. welina dadkayga waa haystaa. isbedelkuna wuu imaan doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. cilada yartaa ee channelka ku dhagan oo ah in muuqaalada uusan faafinayninna waa aan ka gudbaynaa. laakiin idinka ayaa garabkaygii gaashaankayga ah. muuqaalka like-ta iigu dadaala, sidoo kale ii share gareeya oo asxaabtiina u dira. aadaan u mahadsantiin. anigana ma idinka niyad jabi doono insha allah biidnillaah. laakiin waxaad xiiseynaysiin ayaa aniguna xiiseynaa oo niyadda iigu dhismee. haddii aad qisooyinka Soomaalida nacdeen oo aad qisooyinka carabta jeceshihiin gebi ahaanba waa naga daynaa. qisooyinka Soomaalida ayaan carabteenii dib noogu celi dhaha. qaybta commentiga iigu soo qora. aadaa u mahadsantiin asxaabteeda quruxda badan. qisada najmo qaybteedii koowaad ee ugu dambeysay waxay noogu soo gabagabaysmatay. waxay tiri najmo markaan silsiladii safarkayga isku xirxirte oo aan boosteejadii baabuurta laga raacayay aan soo caga dhigte oo aan eriyay tiri faarax feeroweynow anigaad rabtaa miya anoo marwe ah in adeerkii hooyada iyadaaba i dhashee uu igumaysto? anigaad rabtaa miya in magaca waa ku qabaana in uu ahaado yacni qabniin kaliya oo magaca inaan ku noolaado? gurigii iyo adeerkii iyo ilmihii la ii cabiidinayana oo xataa aanan igu ixtiraameyn walaashood ka weyn inaan ahay inaan ku laabto? taas aniga najmo ah ma ahana waa naa kale.
naadhagaan soo iri booskii oo aanba mar hore sii kirayste aan salka dhulka dhigtay tiri nab safarkiyaa la soo gale intii safarka lagu jiray qalbigu walaac badan uu dareemaa waa isla sheekaysanaa amay hooyadaa ku habaartaa marka qaar waa isleeya marka qaar waxaan isleeyahay maxaa usoo baxday haddana nafteyda waxaan ku dhiirigelinaa in waxaan aniga la ii wado uusan guur ahayne in la ii iibsaday naag aanan markii yacni horeba xorriyad haysan oo haddana ayadoo marwo noqotay xorriyad la-aana oo ninkiina uu leeyahay naayaa ciddaada ka dambee naayaa adeerkaa ka dambee naayaa hooyadaa ka dambee hooyo iyo adeer hadday dad aniga ii wanaagsan yihiin waaba ka dambey lahaa waalidka macaasi laguma raaco aan nafteyda ku dhiirigeliye dulmina waayo waxay igu wadaan dulmina halahan ka badan uma aad adkaysa karo safar dheer waxaan usoo socdaba taleefonkii markaan dhawaaday oo xamar aan lugta saare aan gabadhii wacday naahee dhawaa dhownahee ninkii darawalkan wuxuu yidhi waa dhownahee gabarhay ii imaaw wiila ii soo dirtay boosteejadii oo baabuurta ay ku dagaayeen aan ninkii darawalka weydiiyey ii sheegay tiri waa u sheegay wiil dhallinyarahay ii soo dirtay oo dumaashigeed ahaa bacdeen wiilkiyaa i waday gabadhiioo ii geeyey gabadhiiyaa halkii igu soo dhaweysay waxay tiri halkaa fariiso inta jawiga juusto kaaga noqonayo hadhicinoo ha jabina halkaa fariiso taleefonkiiaan kuu dansaday tiri zam taleefonkii markaan kuu dansaday ayaa waxaa dhacday tiri in aan iri horta aan maskaxda dejiyo oo aan nasto oo inta igu waashaan oo i raadiyaan ha arkaan inaan naag nool iska dhigay oo naf ay ku jirto 4 maalin iyo 4 habeen oo taleefonkeyga ii dansanaa bacdeen hal maraan shiday tiri shiditaankii aan shidaayana lambarkii aabbahay aan kala soo baxay waa aan wacay aabe seetaa ma fiicantaa nabad yaa waay uu iska soo jaray oo aabe ima taqaanid miyaa oo codkeyga ima taqaanid miyaa zamaanba imausa maqlin xooyaa qooha aabe waa gabadhaadii najime aheede malikaa soo weydiiyey war xaggee joogtaa malikaa soo weydiiyey maxaad la soo dhuumatay maxaad noo ceebaysay maxaad saan u yeeshay halkeed ku suganta aabe i dhegaysaan idhi anaa kuu imaanayo xaafadda aad degantahay iyo meesha aan kuugu imaan lahaa aabe ii sheeg wax walboo jirana anigaa kuu sheegi doono taleefon war kuma wada dhammaysanayne aan kuu imaado waayaha ii imaaw hooyadayna inta wacdid waxaad ku tiraa gabadhii waa nabad qabtaa wax dhibahee qabta ma lahan aabe macaana u sheeg midda kale ninkii ma soo degtoo ma yimid ma soo degtay inta soo degtay ninkii oo ceebi ka dhacday oo uu yiri lacagtaydii adduunkaygii waa iqiyaanteen hadda ii soo celiya aabbuuq iyo barbaleen ka taagan yahee bal isu kaanya keen waayahaan dhexe adeer aan xamar ku ogaa oo aabbahay la ilmo adeero adeer labaada oo aad u wanaagsanaayo gobolka imaa jire oo booskii aabbahay uu buuxi waayaba ii buuxi jiro isoo kormeeri jiro gobolka ayama uu imaado i wadi jiro anoo yar xataa wax ii soo gedgedi jiray aan adeerkii asagana lambarkiisa waa aan helee waxay tiri aan raadiye aabbahay kalsooni kuma qabo waxaan isleeyahay adeerkaas maalinkaa la kulmaysid ha kaa celiyo adeerkii moobeelkayguba zamaan iigu seefnaaysaa u raadinayay aan fud soo siista waa wacay adeer macaana sheekada dhacda ma maqashay markaa isbariidsanayo iswaraysan kadib haa waa maqlay gabadhaydiye najmo maxaa saas u suubisay gabadh caqli badanaan kugu ogaa inaad tahay maxaasaan u yeeshay adeer macaani aabbaan rabaa inaan la kulmo wax walbana anaa idiin sheegi doono aabbana kuma kalsooni aabbana nin isoo koriye ma ahan waxaan ka fila karana ma ogi maalinka aan la kulmaayo xataa hadduu rabo inuu xoog ama diyaarad igu saaro baawur igu saaraa ka suurtowdee adeerow adaan kugu kalsoonahee bal dhibkayga aan ka hadlay maalinkaas aan aanba la kulmaayo adeer isu kaayakeen xaggee ku ballanteen iyo halkaasaan ku ballanne waayahay ha ka soo dibdhicin haddii aabba markuu i arkaayo inuu daf inta isiista baawur xoog igu saaraa dhici kartee igu ogow jafaan soo eriye tiri intii horta guriga gabadhaan aan ku noolaa aan waxyar idinkaga taataabtee 3 waqti oo cuno ah aala isoo hordhigaay naag martima gashee maalin markaan la joogo maalin labaadkii dhexdaa xirta waa aan caawinayo guriga hooshiisaan dhinacay ka qabanaay laakiinse hooyaday i dhashay adeerkii qabay
afar beri oo 4 sano u dhiganto aan waxay tiri ka naste iska fadhiiso ha isdaalin gabar naxariis badan ee aheeday tiri wayna arki jirtaba intay gobolka ayadu ka imaanba in aan dhibano ahay oo adeerkaas nafta igu haayo weligeedba way ogeed oo xamar intay soo joogto waa wada hadli jirno waa ka wada sheekaysi jirno wixii igu dhacaayo maalinaa ka bixi ee mar walba igu dhiirageli jirtay adigu yaan war idinku daalin anoo dhalaalayo dhamankaygu dhalaalayo aan aabbahay la kulmay iyo adeer waxaan u sheegay dhibka aan halkaa uga soo tegay aabbahay waa ku baroortay magacle aabba iiga tahay ninaa i gumaysanayay ninkaasaa hantidii biilkayga ahe aniga aan xaqa u lahaa ninkan igu meersan ii soo diraay oo aabba afka u dhiganaay aabbii adeer gacmahay afka saarteen macquul ma ahan aabba wuxuu igu yidhi gabadhaydiye soo dhawow gurigaygaan ku geynaa cabo cun ya maxaa la dhahaa maxaa kuu cad maxaa kuu cabo maxaa kuu macaanaa ku noolaane hooyadaana ninka waxaan leeyahay gabadhayda bataatanba waa gabadhaad adii ninkaagu iibsateene caruurta igu salaama aniga waxay tiri leer caafimaada warkaas igu marayda farxad aa meela isgeeye waay war fiican waayaan iri halkii ani aabba isku barooranay wuxuu yiri iga raali noqo hooyadaha iga qaadatay hooyadaha iga kaa xaaraantimay jirtay hooyadaha ii diiday xataa inaan mararka qaar ku soo wato anigana dee nolol kalaa iska suubsaday oo walba ilmo kalaan lahaayo reer kalaan lahaayo dee maxaa la dhahaa ilmahaygaasaan hadda isaga dhex jiraa okay waxay tiri waxaan ku iri hadda gurigaan u laabaa dharna ma wato ee waa kuu imaan doonaaye halka meeshuu ku dambeeya waa isla soconaynaa mayuu yiri gurigaa ma aadaysid cawada waa inaa gurigayga hooyataa gurigiisiyaan tagay xaaskiisii caruurtiisii halkii ku bartay gurigaasi sharaf badan la iigu soo dhaweeye hooyo marka habeen la hadle ay hooyo waxay tiri waryaa imaa gabadha inaad ii soo dirtid kala biyowshalaba ma aadan korsane yaa imaa inaad ninkii lacagtii laga cunay ya oo arooska inaad soo dhiibto aabba wuxuu yiri hushaa lagu yiri dhageyso gabadha cabiidka aad ku heydeen waa aan maqle lacag aniga aan idin siinayo oo iga kiin soo jirta dhankaygana ma lahan ee wax ma kuu sheegaa ninka ku qabee gabadha aad gumaysiga cabiidka uga dhigtee asagu lacagta ha gudo gabadhaydu dahab yaroo ay ii sheegtay unbay wadatay dahabkaasna haddii aad u baahantihiin gobolka qofkii imaanayo waa idinkugu soo dhiibaa walaa lacag kalaana idinka arag walaa hanti kalaana gabadhayda maanta lagu sheegin intii uu qabayoo madaxeeda uu haystana biilka loo soo diro idinkaa cunaydeen aabbe iyo hooyo madaxay isla galeen aabbe dadkii hooyo ka dhashay oo xamar joogayay kusoo yacni tira iga celiyo waa loo imaadayo gabadha xoog maa ninka ku siinayo dhaha waa taas waa naag weyn oo qaangaarahe waraysta ninka ma rabtaa cadaabtii aan ka soo baxay aan uga sheekeeyey dadkii hooyo dhinaceeda ka socday ee reer abtiyaal ahaa okay dhaheen gabadhan xoog laguma celinaaye hayse gabadhaada laakiin lacagaa la iska rabaa aniguma lacagaan cunay aniga masooryadii la ii soo dhiibay ee gabadhayda markii la mehrinayaa la iga rabaa mise wax kale sooriye lagaama rabee waxaa lagaa rabaa ninkaan lacag aruusu soo dhigtay qarash iyo adduunya iyo waxbaa la geliyey xoolo la bireeyana ma jirtee qarashkii adduunyada laysgeliyey xeetee xoolihii waa lasoo xira neefafkii ha la celiyo calaa ayati xaal buuq faraha looga gubtay hooyo dadkeedii iyo hooyo iyo aabe dhex mareen intana uma socoto gabadhaydu intana uma socoto waayaha bacdeen 2 maalina aabba la joogay aabba dharkaygiyaa soo qaadanahaan dhahay gabadhiyaan u tegay dharkiiyaan ka soo qaate jaa gurigii aabbahay aan waxaan go-aansada inaan baraxdo aabe wuxuu geed dheer iyo geed gaabanba u koray inuu iga furi doono ninka laakiin waxaa lagu yidhi haddii madaxa gabadhaada aad rabtid waa in aad iibsatid waryaa geni lagu siimaa ninkii mar alaale iyo markii uu maqlay in aan baxsaday asagu madaxiiga lacag kuma uusan xirin wax kuu sheega waxaa la yiri lama waayo ee wax ku siiyo ayaa la waayaa ma ahayd wax ku siiyo lama waayo ma ahayd adigu bahasha isku walaaqa inta ka keene warkii waa noo yimid bacdeen aab wuxuu yiri ma madaxa gabadhaydan iibsaaha ninka hayla soo hadlo oo ninka maxaa kaa quseeyo oo ma ninkaa shal cilaaqaad la laheyd waryaa madaxa gabadha iibso haddii kale soo dhiib gabadha haddii kale weligeed saasaa loo qabaa bacdeen aabba waxaan ku iri ninka telefoonkiisa aabe
anaa kuu haayo uu whatsappka ku isticmaale raadi ninkii yaa la raadiye maandhow dhegeyso gabari waa buuxdaa naag la-aana ma jirtee gabadhayda haddii ay ku weyde hortaada qeyr ma qarash aad noogu soo fariisatay oo aad rabtay in laguu gudaa jira aniga wixii oo dhan waa cafiyey wax haba yaraatee qarash oo gabadhaada aan ka rabo maba lahaba show hooyaday iyo adeerkeey ismaba lahaynba whatsappka ninkay intay ay aabaheed siido oo la hadlaa aqligaas meeshuu ka maray adigu kaala sheeg bacdeen wuxuu yidhi aabe waa kuu duceynaa nin wiilkaygoo kalaa tahay hortaa qeyr allaha dhigo gabadhayda gabar ka fiican allaha ku siiye gabadhaydu waa ay ku diiday iska soo fur saas miyahaa okayoo yiri waraaqadeed anaa kuu soo diri doono bacdeen hooyaa sheekadii maqashee afkay haddana soo furatahaa ma ninkiyaad u dhacday waxyahu maxishoodaha ah nin waxaa la arki jiray reerka isku dhaqo reerka la dhaqaayo xooyuhuu yiri ma gabadhayda aad rabtaa inaad ninka kuma biilee biil uu kugu siiyo ninka aad adigu 90 adigu biilayd ma rabtaa inaad gabadhaydina biilkii la siilaha ugu dirtid taas hayhaatay kaa tagu dhaha bacdeen habaare iisoo dhaadhaamida hooyo codada iisoo duubta waa ku habaaray anaa ku dhalay ma harsanaysid ma hoyanaysid laabta ay oloshay tiri eedadii aabbe uu qabaa waxay tiraahdo habaarku xaq buu ku dhacaa hadallada habba dhegaysanba hooyo hadalladeeda ilaa ay kaala heshiiso codadka fur inaad dhegaysata ka dhig si ay isaga nafisto faraha ka qaada dhegaysan calooshay ku hurinayaani waayahay ninkii aqiiran yaani war in ku daalinini waa la iga soo fure mar alaale iyo markii la iga soo fure jawigaygii garoobnimo oo aan laakiin la gurigeysan aan waxay tiri iska bilowday eedadii aabba uu qabay xilligii xaaladdu ka kacsaneed oo aniga hooyaday isku huraynay jawi degan ayay igu soo dhaweynaysay kaala arag yaaba heli karaba 2 bilood camal markaan gurigoodii joogo ay tiraa baahurdada ka camal baahurdow saaye aniga waxay tiri dabci ahaan naagaha u dhashay ama dumarka u dhashay in guri ay tagaan ay marti yacni kasii ahaadaan maba ihiba maanta haddaa kuu imaado biri hoosha dhinaceedaan ka galaa laakiin waxay bilowday wejigii eedanimo ee dhabta ahaa ee naxariista laga iloobay inay la soo baxdo in ay haddii aan albaabkaa istaago inay tiraa iriday istaagte aabba igu dirto inay kareemaan isticmaali jiray ay tiraahdo wow waa iscadaysaa lacagta yaa siiyo nimanay shirisaa waa balaayo maxaa la dhahaa ii sheeg aad uga reebtay ee ninkii waa kanaa musiibadaana aruursanaysa gabar kaloo la kariyo tii aan ka soo tegay hooyaday dhashay cidda reerkaas ugu weyneed ka daran aan intana la kari u ah tii yaa laf dhuungasha igu noqotay aniga waxay tiri naagumaysi u adkaysata oo marnaba ogolaanaysa inuu qof bini aadan uusan ku neefle ah gumaysto maba ihiba hooyadayaanba gumaysigeeda soo diiday waxay ahayd midaan ay dhalinay shala maahana daraad ay aragtee rabta inay u gumaysato halkaa markay maraydo oo aan haruuftamo oo aan indhaha kala gagadiyo oo aan sanka weyn taago gabdhaha qaar waxay soo dhaashow aaday ii fiiriyaan midhaa zuuma igeliyaane ayaanay waaba na haruufow saaye sheekadu saas markay taa maaragta oo aan haruuftamaa ciila ahaayo waxaan jilooyaa ama aan isku malayaa sheekada markaas saa u dhex galoo dabaalanayo in naagtii dhanay la ciilaayay la dhibaataynaya inaan ani ahay soo iska celinaan ku jiraa ma fahamti booskiina jimaan taaganahay saas u fahma idinka idinma haruufooyi haruufna idinma quuree iska dhicinaan ku jiraa ma fahamtiin bal orda marka hore muuqaalka like soo saara haddaa igu cusub tahay meesha guduudan dhagsii haddaa asxaabteyda hore kamid aheyd maxaa kugu dhacay waxaad garaweyse inaad muuqaalka like soo saarto isku badheer tahay canjeela iska dubanee cambuulaa igu cunee taraagla taraagiisuu igu wataa dalaal dhulkan waa imisa kan waa 2,000 waa 3,000 uu iska leeyahay waana dhegeysaa markuu soo daalay nasto way dhegeysaa muuqaalkana laagta waa ka iloobe kuwa jaamacadaha kuwa gawaarida igu watee Mareykan iyo Ingiriis iyo Canada iyo Aasiya Oroba jooga waryaada naf isgeliye naag nool yaa iska dhigay orda muuqaalada laag ii soo saar idinkana ragow dee rag inta iska dhigtiin in meesha ay rag joogaan
dareemay muuqaalka laag ii saara bacdeen waxay tiri naayeedoy goormaad gumaysiga bilaabayde maanaaba 5 bil xataa kula jooga shariko arki weyde xoo aha gumaysigan ay ugu bilowde naa waxay bilowde in shaqadii guriga dhan labada lug inta isdul saarato shaqaalihii u jooga tiraahdo waa fasaxan tahay kastii shaqaalaha la siiyay ayadoo ay bago u dhigato inay aniga shaqaale iga dhigato aasayrosh naagtaas aniga maaha aabba iyo aniga dab iyo baasiina isaga kee dhigtay hooyadayaan la yaabaye oo nin jecele aabba waxaan kusoo dul dhacay tiri isaguna naag jecel naagta warkeeda luuba qoraaba ay tiri meel lagama aado waryaa maynaan ku habaaraad iigu timid oo walay hooyadaa ku habaarayday alla waxaan iri shawdad iyo duurba waxaadan filanay inaad kala imaataa oo wixii hore dhan maxiisay ahaayeen aabbahay wuxuu ula yaabayay hooyaday oo aan ku ag xamanay oo aan lahaa hooyaday ninka inta anaga dilac bilaashna siisay beerka u waxaydaa asagana aabbahay bagweyne waa kan aabbahay bagweynow adiguna naagtaana ka dambeeyda soo maaha yaa eraygii ay ku tiraaba waa aad akhridaa meeshaan ka imid maanaaba iloobaba ma anaaba boos la-aan ihaydaaba gumaysiga in yar bal xoogaa u sii kaadiyo bal xoogaha kugu sii dhibca badsadaane bal u tartiibi bacdeen waxay tiri waa isbaabaahiyey si kasta igu qaylido naag weynaa ahay tiri gabar weyn dhoocil aanan ahaynoo aqli lahoo dee wax walba garata yaa wax walba u suubi naa meela iga aragta kaala sheega iyo daaraxanlaay ah walba la dhihi jire meela iga aragta ilmihii sidii tabtii kuwa ila dhashay ee hooyaday dhashay saa uma fiiri kari inta ka leexna ma dhihi kari galabtii oo kale banaankan fadhiistaaye haa nimanay gaadgaadayd hooyaday maba i dhihi jirin bashow ereyadaas nimanay gaadgaadayd gabadhaan nin lay meelaha u taagantaha waatana weli cuddo xataa kama bixin waatana ase aniga waxay sida kee dhex wareertay tiri xeeta cuddaday sheegaysa oo aniga maanaaba lii guri geysta oo mucuddaan qaataa anigiyaaba waxay tiri oo mucuddaa layga rabaa anigaaba is xisaabin gelinaa waaba nasanooyaaye ninba ma anaaba damac nin iyo shukaansi iyo maanaaba waxay tiri niyad u haayaba aabba waxaan eriya tiri aniga inta uma imaanin inaan qadaamo gurigan ka ahaadee gabaraa idiin joogi jirtay aabbe gabadhii hala soo celiyo ee aniga waxaan rabaa aabba uma caane inaan waxbarashadaydii dib ugu laabto aan waxbarto aabbe wuxuu yiri haye igama xumeeyo maalin kale waa weydiiyaa haye maalin kale waa weydiiyaa haye maalin dambe anoo meel iska fadhiyo gabar la sheekaysaayo oo bahal taleefona ku dhegan oo leh mar dhow waxbarashaan galaa iskoolkaygaan sii kamilana xamaran joogaa jaamacadan galaa dee anigoo wax bartayoo shaqaysto ayaan gobolkaa imaan doonaa waxay tiri hooyaday markaan waa iscafinay hooyaday naagtan waxa dhan ay la gubanayso shala markaan hooyaday la dagaashanaa yaani idinka iloobine calankay ii babinaysay sas ay iigu babinaysay laakiin hooyaday waa aan heshiini hooyaday warkii ugu dambeeyey ee tirin wuxuu ahaa bal qof iga roon haddii ay tahay naagta aabbahaa qabo gabadhaydii soo baro bal haddii ay ku dhibtana oo aad fahmi weydina ka imaaw haddii aala noolaa kartida naag weyn oo gashaantiyaa tee gabadhaydii alla macag naagtan markaa waa musiibe shalay ilaa waxayba iigu arxamaysaba oo ay igu sii babinaysay oo dabka ay uga dhigaysay in hooyaday aan la sii dagaalo laakiin markaan la heshiiye wejigeeda dhabta ayay la soo baxday weyl waxaa jiro ayada walaalkeeda oo guriga ku nool awheelow wuxuu bilaabay tiri inuu ishukaansado hadduu bilaabo inuu ishukaansado waa aan yisa ayay tiri ani wuxuu bilaabay tiri facebookgayga inuu igu soo darsado kowdii waa aqbalay qof guriga iskula nooshihiinoo caadiyo facebook ugu soo darsaday waa iska aqbalay eraya shukaansiya markuu isku dayayna taariikh laba ilaabaana aan u dhigay tiri inta caay u dhaamadhaamiyey oo iri yuslis yahuyaa imuud aan baloogna iri bash ku dhe baloogaaga beerka caara ku goyday sacawaryaa canjeelada islaantan maxaa la dhahaa la dhalata ka cuncunaa iskuulkana aabbahayaa ka dhiibay aas wuxuu yidhi waa ku rabaa saayuu imooday taariikhaan u dhigay tiri oradaa eriyay tiri dhidid badanoo waa dhidid badnaa dhidid badanoo dhushuuqan iyo dhididkan ma dhaqi kara adoo abaarahe orodoo hore ii dhaaf bacdeen
naagtan ileen wiilkan weyba ila rabtaba maalinoo horta wuxuu ku yidhi hiblaayo way ii xanaaqsan tahay erayaan abbaayo ku tuutuur waa iskala kaftamaay oo maxay kugu xanaaqay ani waa maqlaaya tiri gabar waa lala hadli jiray caadi waaye waa isgeysiine wiil marka waxaa jiro ayaga kasoo horjeedo oo walaaltinimo aan isku barannay oo arday jaamacadeed ah wiil aada u qurux badan oo shidan oo kaala araga laakiin aniga rabitaan ma iigu jiro oo dee shukaanso iyo guur iyo rabitaan dhab iyo midna iguma jiro anigaaba waxaan taaganahay tiri horta waxbaro maadaama meeshaan aad timid alla aqali waxbarashadaadii sii wado waxbarashada laguu diidaay si xorriyada u wado marka ninba uma jeedi kiiyay marka wiilkaanayba lama seertee ayba waxay taagantaa makanuu ka fiican yahay aabbaha igu didirtee ha tiraahda kaasi cilaaqaad la leedahee wabtah la iga gediyo waalidku dilo waaye iska sabar iska jajafo maalin kale aabe maxaanow iskool igey iskool iska iloowe guriga ha ku deeqee gabar yahay fadhi maxaad iskoolka doonee maxaa tiriyaan iri aabe anay noo taal naagtii boorsada gobolka kasoo jiidatamiiyo animaa intii inta ka jiito meeshaan ka imid u noqon weyhaay yaa anaaba shaqadiina aqaan ani gumaysi iyo qajajac naagu adkaysatamay iiba tii isoo korisay isoo kobisay yaa saxaradayda soo dhaqdee korkeeda ku kaadiyo ku saxaroodaanba kasoo tagon u adkaysa waa dhibkeeda ma qof kalaan u adkaysaa jidkan jabi kusoo dhahay tiri subaxalaasey dabkaan dooni jiray dabdoono meesha layga sugaay ay dheelmato la ii bixiya waa soo dheelmaday gabadhii aan aqaanay gurigeeda yaa ii yaqaan ayadiiaan aalaaseyba waxay tiri habeenkiia usii sheegtay kusoo jirmaan abaajooradigaa ka kacda ama sarirtaa ka kacda weli waa kuu bannaan tahee dhabdheh aabahey waxay tiri ha iraadsho taleefonkan waa dansaahay tiri waa wacay aaba magaaladan dhinac ka galee alla macag tu habaryar ah hooyo waxay tiri inta waco hey aabbii waa la soo heshii waaye oo naagtiisaa musiibo igu noqotay waxay tiri habaryar halkaas joogtee taleefonkeedii sooma haysid asaa iri haa habaryarta ayadana waatu gobolka laga soo guursaday oo gurigeena xataa mar ku noolaa jirtee oo adigu 5 caruur camal miyaa may haysataa oo yaryare waxaan idhahay habaryaraan aadaa gabadhiyaa waxay tiri naa inta miska joogtido waxbarashadaada iska baro xataa maxaan dhahaa aniga iska kay caawi haddaa rabtid haddaadan awoodina xataa anaa kaa dhiibaa waxbarashada iska joog laba isjecel wax isugu dar ayagaaba ku nici doonee adiga ayagaaba isnici doonee adiga keed ah iitaa ma jirto markii adduunka aan soo fahmi waayo adileen kugu soo noqonaa meeshii loo soo laabanay aata adiga iskama kaa xumaynaye ee fadhi jabi boorsadiyan jiid aabe aniga gurigii habaryartay aan ku noolahay saas igu ogu saas maa jeclaataa gabadhaydii alla macag ay habaryartii waxay tiri aan boorsadaydii dhinac dhigtay gabadhaydii soo dhawow waaw najmo qurxe si sharaf la ku soo dhawow labada beri xaasugahe waa la isoo dhaweeyey mar alaale ee markii ay baryo kasoo wareegatay wejigii la ii badashay markan halkee ayaan boorsada u jiida doonaa ayadoo gabadhii aan boorsada u jiida jiray ay safar Kenya u aaday halkee ii bannaan oo boorsada u jiida doonaa la soco qaybta 3